baxaya talalinayo waabayadooda kuwii bilaabe dadkan baxaya talalinayo waabayadooda kuwii ka baydhe dadka laxade boqonta gooye waabaabooda kuwii ka baydhe dadka laxade boqonta gooye waabaabooda barbadhanay hadda joogtaa taabadhaadhay ilaysi baaba agaanu wadnoon intaan ka boganay ku barbadhanay taabadhaadhay hadda joogtaa ilaysi baaba agaanu wadnoon intaan ka boganay ku barbadhanay madax bannaani farqa ka qaata barooranaya waan ka baxne madax bannaani farqa ka qaata barooranaya kuwii ka baydhe dadka laxade boqonta gooye waabaabooda kuwii ka baydhe dadka laxade boqonta gooye waabaabooda barbadhanay hadda joogtaa taabadhaadhay ilaysi baaba agaanu wadnoon intaan ka boganay ku barbadhanay taabadhaadhay hadda joogtaa ilaysi baaba agaanu wadnoon intaan ka boganay ku barbadhanay رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يستر أمورنا يا رب العالمين دمانتين با مدنتا فارح يدلي علماء سلادينتا عقاشا دلنيرada aqoon-yahanada iyo dhamaan dhalinyarada iyo haldoorka deegaanka halkan isku yimi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib waxaan maanta halkan isku nimi shirweynaheeni farax yidle insha Allah ta'ala aynu ku gofayn doono maartay arrimaheena isla markaana aynu ku saxan doono ilaahayna aynu ka rajeynayno inuu inoo noqdo maartay kiitanaada ee tisqaada maartay taabagal inoo noqdo bismillaah ta'ala سمدنا وفرنتا ورحمدنا ودايساي إلهي arrimeena maqbuula ka yeelo marka shirka waynu bilaaban doonaa anagu gudidii baanu nahay shirka hageysay idinkuna mudantii reerka ee taladu ka go'aysay baatihiin marka insha Allah ta'ala xog iyo xogagaalba waxaanu haynana waa soo gudbin doonaa marka shirka waan bilaabanayna hadii la yiraahdo waxaanu ku bilaaban doonaa kelimada ilaahay inuu inoo akhriyo maartay sheekheena Sheekh Axmed Ciise soo dhow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول خبيب فجزاكم الله خيرا إما كانوا واحد كسر دوين دونا يو وعد مدرسة كساب صار إنه سوت شدين دونا وأنا يوعد بس كان راعين دونا شيخ حسين يوسف شيخ حسين فرح يوسف
وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa walaalayaal, shirka dhammaantii mudanaha tolku waa mahadsan yahay waana salaaman yahay. alla subxaanahu wa tacaala waxa uu ku boorinayaa in la isqabsado gacmaha, wactasimuu bixablillaah, in xadhigga ilaahay la wada qabsado. horta ilaahay shirkeennan ha ka dhigo kii alla kacabsi ku dhisan, ilaahay ha ka dhigo kii xidhiidhin ay ka soo baxdana ilaahay ha ka dhigo. shirka waxaa la yidhi waxay ku jira turxaan saarid. waa sax, dadka muslimiinta dhammaantood inay turxaan saaraan. waxaana xadiis rasuulka ahaa salawaatullaahi calayhi wasalam, xalaal uma aha qof muslina an yahjura aqaahu fowqa halaaثata layaal, 3 habeen wax ka badan inuu walaalkii ugu hayo caloosha wax. halkaa yacnihii qof kastoo muslini dee markuu cibaadaysanayo alla kacabsi wixiis ku dhisan yahay, ogow hadda 3 cisho waa xadiiskaa rasuulku nahyiba ayaa saaran. maayin 3 cisho wax ka badan markaad walaalkaa caloosha wax ugu hayso, khatar inay ka tahay cibaadadaadii lagu soo celinayo. waxaa xadiis kale rasuulku ahaa salawaatullahi calayhi wasalam, toddobaadkii 2 jeer ayaa la camalada ibni aadanka la sajalaa, waa yoomul khamiis iyo yoomul isniin. labadaas jeer ee camalada la sajalayo, 2 qof camalkooda waa la soo celiyaa, labadii dhexdooda wax isku haya camalkooda celiya baa la yidhaha, xataa yastalixa, ilaahay ka soo heshiinayaan kuwaa celiya baa la yidhaha. war bal ka waran, waa 7 cisho ayaa la yidhi ka sanad camalkiisa la soo celinayey, bal ka waranka ka badanee 10 sanad camalkiisu soo noqonayay uun ambaba sidaa ku godgelayay. ciyaadu billah, waa khasaare ayuu ku sugan yahay markaa qofkaas. walaalayaal, markaa horta taa inu ilaahay kaga cabsanno, ilaahay aynu kaga cabsanno. waxaa kaloo jira tolku ninka maarmaama jiro, kii caloosha wax ku haya cidi kama maaranto, isna ma maarmo. taasna walaalayaal aynu dee gacmaha isqabsanno, wax loo samro ood u samirto ood u dulqaadato waxa wanaagsan tol. iyadii haweenayda gurigaaga kula joogta, labadooda waa la ilaashada. haweenaydana haddaad arrinkeeda aanad ilaashan, dee reer ku dhisnaan maayo kaa dumaya. dee tolkana haddaanad ilaashan, dee cidlaad istaagaysa. marka inaynu labadaba is ilaashanno waa muhim weeyaan walaalayaal. waxaan filayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin, maanta cidle faaraxiidle hebel baa dhiigigaga maqan yahay, hebel baa inankaygii haya, taasaaba dee laga heshiiyahay. hebel baa inankayga hayuu ku maqan yahay oo dilay ma jirto. waxa yaryare kale jirta iyo kole waxyaabaha inaanu bislaano ilaa siyaasaddii doorashooyinku ay ka mid tahay, oo dee tolnimada iyo siyaasaddana in la kala kaxeeyo ay ficnaan lahayd, ilaa intaa qof waliba calooshiisa ka xaadho. kole aqoon-yahanadii iyo anigu intaas ayaa insha allahu tacala kusoo gaabinaya. arrin walood gelaysabana alla kacabsi ha lagu bilaabo, oo ilaah kacabsi ha lagu bilaabo. wixii aan alla kacabsi aanu ku jirin waa soo daba go-an yahay, shaydaan baana maamulaya. alla kacabsi aynu ku bilowna wixii kastabana. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dee wacyi iyo waciid iyo dariiqa saxda ee maartay, maadaama aynu dad islaama nahay. islaamku waxa weye wuxuu ka bilaabmaa usra, qoys buu ka bilaabmaa, faamiligaasi wuxuu tagaa ehelkaasi wuxuu usii baxaa tolku wuxuu sii gudbayaa islaamnimo, oo dee maartay wuu sii gudbaya qabaa'ilkii. marka laga sii gudbo, oo ilaahay baa dee aayadkiisa qur-aanka inoogu sheegay in qabaa'ilka maartay laysku garto oo laysku kaashado wanaag, balse aan xumaan layskugu gargaarsan oo laysku kaashan. marka ilaahay haynaga yeelo kuwii maartay qabiilnimadeenna iyo tuulnimadeenna wanaag iskugu kaashanaya, wixii xumaantana iskaga nahiyaya. aad buu sheekhu mahadsan yahay. haddana waxaan kusoo dhoweyn doonaa suldaan maxamed oo isaguna kelmadda maartay furitaanka ee shirkaasi jeedin doona. salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi, runtii dee wacdi iyo waana waxaynu ugu filan intaa sheekhuuna yidhi. innagu haddaynu reerka halkan isugu yimi nahayna, dee dad wada dhashay oo walaalaabaynu
saa uu sheekhu inoo sheegay inaynu dee qalbiga ku haysano inuu isuda saamaxna way wanaagsan tahay halkanna waxaynu isugu nimi inaynu bal wixii qorjoofooyinee jiray ama xanafee dhacday ama wax kala tirsi ahaa iyo tiradeenna iyo hawlaheenna aynu ku dhammaysanno shirkuna waa inoo furanyey waxaan leeyahay kolley dadka aniyo xasan baa ugu kala fogeynoo waataa na ogeydeen isagaa iga yaraa caqli roonaaday oo arrintayadii dhameeyey xasana waxaan leeyahay adiyo ismaaciil axmedna intaasaan idiin soo jeedinayaa isa saamaxayn adeer ya shirkuna waa inoo furan yahay على أمر الدين والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمانين تلوينها فارحي اللي goobtan shirku ugu soo gabagabay aad iyo aad baan salaamayaa maanta oo ay taariikhdu halkan tahay baan ku duubaynaa warmartiyeedkii maartay uu reerku soo gaadhay halkan waxa ay ardayga faaraxid le uga soo bilaabmay shir laba cisho u socday labada cisho oo ka soo bilaabantay 12kii bisha iyo maanta oo ah 13kii bisha halkan uu shirku ka dhacay goobtan waxa weeyaan goobta tuurta ee magaalada Kaamcali Heelo qodobada warmartiyeedka ka soo baxay shirka waxa ku matali doona oo maartay ku hadli doona caaqilka chief caaqilka ardayga caaqil Ismaaciil Axmed Cawaale isaga ayaan ku soo dhaweyn doona hadii la yiraahdo oo sheegi doona gabagabada iyo gunaanadka iyo warmartiyeedka uu reerku ku soo gunaanaday shirkiisan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa soo dhawaad bismillaahi salli ala maxamed sida la sheegay halkan waxa ku shirayay ilaa bisha 12keedii ee maanta ay bishu tahay 13 faaraxidle wuxuu ka shirayay danihiisa hoose ee u gaarka waxaanu halkaa ku dhameeyay wixii farxaan saar ahaa iyo farsamo waxaanu ku soo gabagabeeyay inuu laba guddi sameeyay guddi 12 oo miyiga iyo guddi magaalada oo iyadana tiradeedu ay tahay 9 nin hadii ilaahay uu qadaro wixii kale ee tolka la lahaana sidii loogu ballamay baa la isaga iman doonaa balliga lagu soo hoyin doonaa hadii laga wada hadli doonaa go'aamadoodana waxa ka mid ahaa inay soo gabagabeeyeen xildhibaan reerku wato oo la yiraahdo Farxaan Xiis oo ka uga qayb gali doona doorashada golaha deegaanka isaguna halkaas lagu soo diyaariyay hadii ilaahay uu qadaro wixii kale tolka la leeyahay waa la isugu iman doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi